بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد أحمد graphic designer video editor iyo sidoo kale English tutor. Cashirkeena maanta haddii la yiraahdo waxaan ku qaadan doonaa cashir ku saabsan roll up banner-kan qaabka aan u sameynay aan u design gareynay ayaan cashirkeena ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo maanta. Roll up banner-na waxaa la yiraahdaa badanaa waxyaabaha shirkadooyinka waxyaabaha ay ku xayistaan marka munaasabad la qabtay waxaas board-ka yar ee meesha la soo dhigay si ay u taagan dhererka u dheer ayaa loo yaqaanaa roll up banner. marka kaasaynu maanta design gareyn doonaa haddii la yiraahdo sidoo kale waxaynu ku naqshadeyn doonaa Adobe Photoshop. markaan soo doorano barnaamijkeenan waxaynu cabirka roll up bannerku badanaa wax la daawacay maadaama uu yahay daawacad galaya waanu sixi doonaa halka new file intaan dhahno ayaynu marka shaashadeena baynu soo saxan doonaa. marka roll up bannerka cabirkiisu marka centimeter baad isticmaali doontaa maadaama aad aragtay inuu dhererka uu dheer yahay ballarkana uu yar yahay ballarka sida awgeed marka 85 centimeter baad ka dhigi dhererkana waxaad ka dhigi doontaa 200 centimeter. marka halkan waxaad ku qoran doontaa roll up banner. halkan sidoo kale resolution-ka 300 iskaga dhaaf meeshan RGB-ga inaad ka bedeshay isku day ood ka dhigto maxay CMYK color. marka maadaama inuu hadda preview ahaan u rabno inaan wax ku baranayno halka RGB-gaas aan iskaga daynaa marka kadib create baan odhanayna. marka cabirkan oo kale ay noo soo bixi doonaa naqshadeyntii baan hadda marka guda gelaynaa. saad ugu jeedo marka midkan naqshadeyno waa midkan meesha ka muuqda. marka u horeysa waxaan soo qaadanaa ellipse tool shift adoo la hayaad marka halkan u draw gareyn kadib baa xaggaas kora wax yar u diraynaa kadib control A intaad dhahdo selection saarta dhammaan kadib waxaad oran doontaa halkan horizontal center si uu dhexda macnaha kugu aado kani kadib dhexda aad ugu aadan yahay control D select iska dheh. marka aan iska dhamaystirno kan waxaynu koobi ka bixin doonaa si aan koobi uga bixino control J baan odhan doonaa. qaybaha kalena waad adeegsan kartaa intaad halkan layers ka tagto halkaas duplicate layer waad oran kartaa sidoo kale xaggan layers waad ka tegi kartaa iyadana sidoo kale duplicate layer intaas oo qaab waad isticmaali kartaa laakiin hadda shortcut-ka ayaynu isticmaalaynaa. marka kan aynu koobi ka bixina baan color-kiisa yar bedelaynaa. marka maadaama hadda waxaad saa u wada arkaysaa waxa weeye kanaan hoos soo marinaynaa kan marka si aan hoos soo marino waxaan oranaa control plus shift plus open card bracket haddaan dhahno marka waa kaas aan ku celiyo mar kale control plus shift open card bracket ayaad oran kadib hoos buu guwaadi doonaa. marka fallaadha hoose dhanka arrowga ayaad hoos u sii doontaa kadib saas uu soo bixi doonaa. layerska iyo qaabka loo maamulo inaad barnaamijkan Photoshop-ka aad si fiican u taqaanto aad bay muhiim tahay. marka course-keenana si fiican ugu sharaxnay layerska iyo qaabka aad si fiican aad u maamuli lahayd. markaynu copy sida uga soo bixino waxaa ujeeda hadda design-keenii hore inay kala jaran yihiin saddexduba kaas kale uu kan ka jaran yahay midkan kalena uu kan kale ka jaran yahay. qaabka marka si aan u samayno waxaan samayn doonaa keenan dambe ee hadda aan copy-ga ka soo baxsanay ayaa waxaan samayn doonaa right click intaan dhahno ayaynu resize layer odhanaynaa. resize layer markaan dhahno macnaha wuxuu inoogu bedeli doonaa sawir caadi ah. marka inagoo keenna dul joogna ayaynu waxaan tegi doonaa kaa kore ellipse tool-ka oo kii originalka ahaa kadib click baad ku siin doontaa. marka selection-ka yar uu kuu saaro waxaad oran doontaa control X. hadda marka waxaan u baahnay si aad ila fahanto kanaan isha ka qaadi doonaa. marka waa ujeedaa qaabka intaa bas aan rabnay inuu naloo soo reebo way naloo soo reebay. marka isagaynu waxaan ka dhigaynaa duplicate waan ku orana control J oo mid kale aan ka bixin doonaa kadib kaasaynu hoos soo marin doonaa wax yar baan hoos soo dhigaynaa marka. okay markaas sidaa u soo socoto kan dambe waxaan ka dhigi doonaa kaa kore colorkiisa kadib halkan baynu fxtan tegi doonaa color overlay baan tegaynaa marka. marka hadda qaabkaas intaasaynu ku dhamayn hadda design-keeni kadib kanaynu waxaan u baahnaa marka inaan sawir soo dhex gelino sawirkeena marka si aan usoo doorano waxaan oran doonaa place linked place embedded baan dhahaynaa kadib sawirku meesha inoogu jiraan kasoo taagan doono. marka waxaan u baahannahay sawirkan iyo inaan shape-ga isdhex gelino si marka sawirka iyo shape-kan isku dhex gelino waxaan samayn doonaa inagoo sawirkeena labadan baan rabnaa marka inaan isdhex gelino waa inay isgarab yaalaan labadan marka sawirka iyo shape-kan u baahana marka inaan isdhex gelino kadib sawirkeena inagoo dul taagan ayaan right click oran doonaa kadib create clip mask aad oran doontaa. hadda marka sidaas ugu dhex jira haddaan xaggan hoos soo durkino qaybtan intaan u baahnay waa sidaas marka haddaan hoos soo durkino wax yar waad u fahmaysaa qaabkaas macnaha shape-kaa kaluu ku dhex jiraa kaas u dambeeya marka qaabkaas inoo noqday. qaabkan rabnin waa qaabkaas sawirka dad baanta markii aad waxba yar weynayso aad weydiin kartaa dhimale.
marka qaybtaas saasaan ku dhamaystirnay. Hadda marka waxaa inoo dhiman keliya qayb kale oo halkan ahayd oo designka ka mid ahayd inaan sameynay. Iyadana pen tool baan ku sameynay. Halkan pen tool baa soo dooran doontaa. Marka pen toolkan waxaan si fiican ugu sharaxnay koorsideena haddii ilaahay yiraahdo aan dhawaan soo shaacin doono. Meeshaan saa usoo ejiye baad kale ku sii marka meeshan joogaad waxay saa usoo jiidadana keli baa ku sii marka hadda qaybtan shift haddaad la qabto mid toos kuu samayn doona. Kadib halkaas kale inuu soo xiri doono. iyadana sidoo kale marka qaabkaasaan sameynay. Intaa markaa sidaa u socoto isla kan baad marka koobi oran doontaa oo control j intaad dhahdo kadib marka isaga xagga dambe aad u diri doontaa kanaad ka hooseysiin doontaa. kadib xaggan aad u yarto kin wax yar kalarkaan ka bedelayna marka si aad u aragto. xiran durkino marka isagana sidoo kale inuu jarnaa baad arkaysay. marka mid kan bayn waxaan ku jiri doonaa kan kale qayb kale oo marka waxaan u baahnaa kan dambe shaybkiisa ma rabno. sidoo kale si aad u fahanto waxaan sheegayo kan haddaynu ka qaadno waxaan u baahnaa kaa dambe intiisa qaybtiisa stroga ahaan inaan ka dhigano. kadib waxaan samayn doonaa marka kan dambe ayaynu u bedeli doonaa sawir stress layer baan oran doonaa. kadib marka inagoo kaa hayna oo dul taagan ayaynu kan control intaan qabano aan click ku siin doonaa. kadib intaasuu naga jiri doonaa control expand aynu hadda marka inteenaasi waa inoo jaran haddaan xaggan durkino waad arki doontaa marka kaas qaabkaan u baahnayna intaas bixi. intaa markaas u dhamayna hadda wax yar hal mar waxaa inoo dhiman qaybtii inaan soo gashano waxyaabihii aan sameynaynay. kadib meeshan aan shape ka soo qaadanaynaa ellipse tool meeshan aan ku draw garayn. kadib shapekan marka sawirka saad uga jeedo qaybtii inay qaloocan tahay baa ujeedaa. marka si aan u qaloocino waxaan samayn doonaa direct select tool baa soo qaadan doontaa. kadib meel ka mid a meeshan aad ku dhufan yes baad oran marka. kadib marka isla kan un baad marka aad isagana ka bixin copy control j baad oran. kan baad hoos u diray wax yarna kor baa u dirku marka isaga marka waxaan u bedeli doonaa stroke baan xaggan tegi doonaa. kadib filka nan baan oran doonaa stroke baan u baahanaa isaga marka strokena waxaan u baahanaa marka inaan kan ka jarno isagana sidoo kale resize layer baan dhihi doonaa. kadib kan inagoo hayna control inagoo hayna ayaan ka click oran doonaa. kadib control x kadib marka waxaan loogooyinkii waxaan u baahnay inaan soo gashano hal mar ayaynu xaggan ka soo qaadan doonaa. kadib marka qaybtaa koowaad markaan sidaa u samayno kan kale marka copy ma soo oran doonaa. 3 xabba maadaama u baahannahay copy baan dhihi doonaa. kadib mid kale aynu copy ka bixin doonaa. marka kanna kalarkaan ka bedelayna color overlay aan dhahaynaa. hadda qoraalkii bis aynoo dhiman inaan ku qorno hadda qoraalkii baan hadda ku qoraynaa. intaa markaan dhamayna halka marka shay yar baa inoogu yaallay oo way afar iyo ay ku qoran tahay. kadib kii baynu samaynayna marka kamaad ku draw garayn taasoo kale. kadib isla kan baad marka copy ka bixin control j dad dhahdo kan baa marka dib u soo bixinaynaa meelahaasoo kale aan ku ekeynaynaa. kadib kanaynu color ka bedelaynaa marka qoraal yar baa ku qornaa. qoraalkii yar aan xaggan ku qoraynaa we offer you horta marka black bay ahayd ka dhigno medium caadi ah. marka qaybtan waa magacyadoodii waxyaabaha aynu sameyno oo servicekaan bixino ayaynu xaggan ku qoraynaa. marka adeegyadaan bixino qaybtan sidoo kale mar kale halkaan baad bedeli kolba wixii aad u baahnayd marka inaad ku samayso. marka halkan oo kale sidoo kale waxaa inoo dhiman qoraal yar oo meeshii lambarka aan ku qoraynay inaan xaggan ka soo qaadano. halkan buu marka inoogu qoraa shay yar.
kolka qaabkaasaan ku dhameyn hadda roller panelkii miisaankiisii halkan waxaad soo gashan doontaa numberna qaabka loo qoro caadi waad garan marka halkaas soo galan sidoo kale social media waxyaabahaas soo dhigan doontaa marka casrigeena aynu hadlayna qaabka loo design gareeyo roller panelkan halkaasaan ku keenana khayr badan baan idin rajay subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk